Halkani waa warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah Xamaas oo war soo saartay, Jarmalka oo soo dhaweeyay warkaasi ay soo saartay Xamaas. Diyaargarowga beerista geedo fara badan oo ujeedo badan leh oo Itoobiya ka socda. Wararkaasi oo faahfaahsan ayaa naga bogan doontaan. Diyaargarowga beerista geedo badan oo ujeedo badan leh ayaa ka socda deegaanka Oromiya, iyadoo la raacayo barnaamijka dhaxalka cagaaran ee hal maalin. Xafiiska beeraha ee deegaanka Oromiya ayaa ku dhawaaqay in diyaargarowga beerista dhirta fara badan oo ujeedo badan leh lagu doonayo in lagu beero in ka badan 182,000 oo hektaar oo dhul ah oo deegaanka Oromiya ka mid ah, iyadoo la raacayo barnaamijka dhaxalka cagaaran ee hal maalin gudaheeda lagu hergelin doono. War-saxaafadeed uu maanta soo saaray madaxa xafiiska beeraha deegaanka Oromiya, Mudane Geetu Gamaju, ayaa sheegay in deegaanku uu sameeyay diyaargarow ku filan oo ku saabsan barnaamijka dhaxalka cagaaran ee hal maalin ah oo la qaban doono 27 bisha Hamle 2018, iyadoo la raacayo halkudhiga beerista rajada. Waxaa kale oo uu ku dhawaaqay in diyaargarowga beerista geedo badan oo ujeedo badan leh oo lagu beeri doono dhul dhan 182,105 hektaar oo dhul ah hal maalin gudaheeda. Wuxuuna tilmaamay in ay jiraan geedo kala duwan oo la diyaariyey beerista 27,000 ee xarumood oo ku yaalaan deegaanka Oromiya, iyadoo la raacayo barnaamijka dhaxalka cagaaran ee sanadkan. Wuxuuna sheegay in ka badan 15 milyan oo qof ah in ay ka qayb qaadan doonaan beerista dhirta. Wuxuuna ku baaqay bulshada in ay soo baxaan oo ay rajooyinkooda mustaqbalka ah ku beeraan maalintaasi. Waxaa kale oo uu ku dhawaaqay in 7 sano ee la soo dhaafay geedo loogu talagalay ujeedooyin kala duwan ee deegaanka ah lagu beeray dhul dhan 8.2 milyan oo hektaar ah. Wuxuuna sheegay in qiyaastii 85% geedihii la beeray ay soo baxeen. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in dhulka kaymaha ee deegaanka uu kordhay 17% ilaa 29%, sababtoo ah beerista geedaha ee lagu sameeyey barnaamijka dhaxalka cagaaran sanadihii la soo dhaafay. Waxaa kale oo uu sheegay in xarooyinka qallaleen oo ay soo kabteen nabaad guurka ciidda uu hoos u dhacay, bacriminta ciidda ay kordheen. Madaxafiiseedku waxaa kale oo uu sheegay in hawshani aysan kaliya ah kordhin wax soo saarka iyo wax soo saarka beeraleyda, laakiin ay sidoo kale abuurtay fursado shaqo oo dad badan. Xamaas ayaa soo saartay war cusub, waxayna sheegtay in wareejinta hubka culus, taasi oo qayb ka tahay heshiiska ay la gashay guddiga nabadda ah ee Trump, ay ku xiran tahay in Israa'iil ay joojiso dhammaan noocyada gardarrada, isla markaana ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza. Bayaan ay soo saartay kooxda ayaa sheegtay in ay si mas'uuliyad iyo si wanaagsan uga wada xaajootay heshiiska, iyadoo ay jirto is-afgarad qaran oo u dhaxeeya kooxaha Falastiiniyiinta. Waxayna sheegtay in ballanqaadka Israa'iil ee ah inay joojiso weerarada ka dhanka ah ee Gaza uu yahay sharad aasaasi ah oo lagu sii wadi karo heshiiska. Xamaas ayaa sidoo kale sheegtay in heshiisku uu dhigayo in la geeyo ciidamo caalami ah oo ilaalin ah, isla markaana la damaanad qaado xaqa ismaamul iyo go'aan qaadasho, iyo in la dhiso dowlad Falastiin ah oo madax bannaan. Waxay intaasi ku dartay in hubka culus ee ay Xamaas wareejinayso lagu kaydin doono mas'uuliyadda guddiga qaran ee maamulka Gaza ee hoos yimaada guddiga nabadda.
Jarmalka ayaa war ka soo saaray heshiiska Xamaas iyo Trump. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Johann Wedeful ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo wararka rajo leh ee ku saabsan heshiiska ay gaareen guddiga nabadda ee Trump iyo Xamaas. Qoraal uu ku daabacay bartiisa X ayuu wasiirku ku sheegay in hadda ay muhiim tahay in horumar dhab ah la sameeyo, isla markaana Xamaas ay si dhab ah hubka u dhigto. Wuxuuna intaasi ku daray in Xamaas aysan mar dambe khatar ku noqon karin Israa'iil. Wuxuuna sidoo kale sheegay in Jarmalku uu diyaar u yahay inuu dadka Gaza ku taageero gargaar bini'aadanimo. Waxaa xusid mudan in heshiiskan ayaa sidoo kale dhigayo in Israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza. Hase yeeshee, Israa'iil weli kama aysan hadlin arrintaasi.